السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan joognaa magaalada Oslo. waxaan maanta idin ka diyaarinaynaa vlog yar qurux badan inta jecel inay Norway Oslo ku soo dalxiiso. dhulkan waa iska qabow barafkeeda waa dhaxanteeda laakiin kana السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين بعد بدين دوسلاي مركز الدنيا joogtaan ba waa walaanka Kini Bros weeyaan bal hadaba intaan fiidiyoga aniga asxaabteedu garan information ku siiyo magaalada Oslo. Oslo waa caasimadda dalka Norway. Norway wuxuu ku yaala qaaradda Yurub, waqooyiga qaaradda Yurub. waa wadan qabow waana wadan kulul. maxaan kale micnaheedu wax weeyaan xilliga samarka waa wadan aad u kulul, xilliga winterkana waa xilliyada la yiraahdo depression iyo buuq baa ku dhaca dadka. waa xilli ay aad u qabowdahay dhaxanteeduna saayid iyo saayid tahay. asrootro meeshan habeen ma joogteen. magaalada Oslo waxaad ka helaysaa wax kasta oo baahato. waxa ku yaala shopping centero ama dukaamo waaweyn oo international caalamka ah. xagga cuntada waa number 1 Soomaalida joogta masha Allah ilaa wax lagu qiyaasaa Oslo gudaheeda inta kaliya wax la 20,000 ayaa lagu qiyaasaa. Soomaalida degan wax lagu ilaa 45,000 oo Soomaaliya ayaa iyagu laftooda degan. marka like ta share ta subscribe insha Allah kareento noo imaahay nala socda fi channel ku xirnaada hadii ay naftiino daa inagoo wadamo badan caalamkaana insha Allah Ibrahim Norway mother welcome to Norway magaciisa cameraman and this guy Allah is smart Ibros he's from Jamaica man again I feel wax sax la sheegay meeshan أنا مسكع يا الحافظ بنا مقعد أصلا مكلي ما دوم بحنا دير ماله بدنا وقت الحيسة صح لك هو مش عقو سفيان يقول الحيس كون أحسن يا أوكا هل كان واحد هذا وبير و هذا سكر كل شيء جو إن حاجة بده هوستي ده عماشان كنت هاج هوستي ده وحاله قد الساي ومش وروح بدنا نقول الحيس بدنا مقعد وياه qof kasto yani maadam yani samarka imka kor waa iska dhaxan dabayl baa jirta oo qabow dad badan ma joogaan laakiin xilliga samarka marka la gaaro aad bay qurux badan tahay. hoteella ku yaala library-gi maqaaxiyo xagana waxa ku taala xeebtii. marka Oslo meesha ugu qurux badan ee qof dalxiis manay u yimaado weeyaan. you have to pay the price like it's very expensive ku soo talaga lacagta cayd wax badan goyn mayso halkan markaad joogto. Oslo satra wallahi meeshan halkan waa centralka magaalada Oslo weeyaan. haddaan maqasho bartamaha Oslo ama suuqa ugu weyn meesha ku yaala weeyaan. tareemada ka baxa arrinta Ibrahim waa ka wallahi billahi mashallah weliga Oslo ma timi Norway ma timi dhaxanteeda ma artay. halkan waa centerka magaalada Oslo. wax kasta magaalada ku ay u baahan yani aragtida ku ogaato ayaan kula share gareynaa. waa bas waa cuntadeeda waa trainkeeda waa basaskeeda everything show arbaa ka dhaafayso. marka noo socdo insha Allah kariib waxaan ka sameynaa vlog yar qurux badan magaalada Oslo. quruxda wallahi beautiful magaalada yar oo iska tuula laga nacaayina. waxay leedahay meelo fara badan oo magaaladan lagu dalxiiso. waa magaalo badda doomo badan oo ka baxa oo taga wadanka Jarmalka, Denmark, Ingiriiska iyo wadamada kale caalamka ama wax la cruise shipping kale raadaan way u yimaadaan meeshan weeyaan. من
cimilada Norway iyo cimilada Turkiga waxay ku kala duwan yihiin ama cimilada dunida kale ninkan waayo tabriisa badan maanta marka Chinese baa ku helay maanta marka qalbkiibkuna sidoo u ekaado nala daawada let's go Yes, that's it. Wataas magaalada Oslo intaas aniga eeg tahay hadii ay naftii noo daayo isoo qor meesha rabta next time inaan ku sameeyo inaan ka soo sameeyo vlog ka soo sameeyo comment ugu soo reeb magaalada Oslo centerkeedii waxa shopping center meel dhinaca waxa ka xiga shopping center baa ka xiga marka waa inta waa magaalo xilliga winterka marka la gaaro عادي معها هذا تمادو we are here waxa ka baxay magaalada afar waxay leedahay afar transport hadda taxi raacdo taxiga magaalada waa qaali weeyaan marka taxi waligaas ku raac waa meesha waxa weeyaan wadamada adduunka ugu wanaagsan dhinaca transportka magaalada okay marka hadda taxi waa qaali weey wadankan very expensive taxi waa qaali weeyaan laakiin basaskoodu ama local baskooda waxa baxaa metroga undergroundka trainka basaska uberka wax kasta way leeyihiin wax kasta oo mar way leeyihiin marka mar walba wax weeyaan oo kale iska ilaaliyaan lagu dhicina wadina isma dhacda meesha wada waxna ku dhici mayso very safe way waa 5 milyan iyo badh weeyaan wadankan 5 milyan iyo badh kaliya weeyaan marka malaha wadan oo amaan weeyaan boqolkiiba 99% oo wadan amaan weeyaan ya insha Allah kareem waan soo tusay basaskii undergroundkii shoppingadii iyo waliba meelaha kale ugu quruxda badan cuntooyinkooda everything is cool wallahi hadaas id Oslo kama qanaanin halkan Soomaaliya midowga xafad garoon leeyahay Soomaaliya midowga ka baxsan halkan yara laakiin magaalo weyn ma aha runtii la wadaal wallahi ila maanta Soomaaliya ya ahob soo kaygiyo I'm gonna go home and so did I ودي سود ده لدينا اللي صوت مقاضة أصلا على مقاضة بس لوكوس راجع عن سويا لكن لو قبل لو جناح يسقال ما مركز سعري صار هو جناح صار هو جالس فيها أصلا ليفربول ومقالوا يقدموا جوا خالصين بكمتها
adduunka ugu qaalisan ayay ka mid tahay. Lambar 2 waa waddanka adduunka ugu ammaanka badan leh. It's very nice. Waddan ammaan badan weeyaan, waxay ku yeereen. Anoo tuulooyinka laga yaabo inaad tusriyo xal hesho laakiin wasal laakiin waa masha Allah.